السلام عليكم. كسلو وجهنا كنبكا ميديا. فالهديات كوسبتاي سبسكرايب نوصل muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay dhiso. waxaa jiray haweeney Soomaaliyeed oo la oran jiray Maryan oo ku nooleed meel miyi ah oo joogay arrin badan aysan helin fursad ay wax ku bartaan. Maryan waxay yaraanteedii aad u jecleed waxbarashada, balse markii ay qaangaar noqotay waxay aragtay in dadkeedu aanay qiimaynin muhiimadda waxbarashada ururtooda. Maalin maalmaha ka mid ah, Maryan waxay go'aansatay in wax ka beddesho nolosha ururta miyiga ku nool. Waxay bilowday safar ay tuulooyinka ku tagayso, iyadoo dadka ku dhiirigelinaysa in ururtooda wax baraan. Laakiin dad badan ayaa ka diiday aragtideeda. mid ka mid ah odayaasha tuulada ayaa ku yiri ururta waxay u baahan yihiin inay daajiyaan ariga, waxbarashadu waxay ku habboon tahay magaalada. Maryan way ka niyadjabtay hadalkaas, laakiin maysan joojin dadaalkeeda. Waxay bilowday inay dugsi yar oo oshad ka samaysan ka dhisto tuulada, iyadoo ururta ku asuntay inay halkaa wax ku bartaan si ay dadka uga dhaadhiiso muhiimadda waxbarashada. Waxay subax walba guri u mari jirtay ururta. Muddo kadib, dugsiga Maryan wuxuu noqday mid caan ka ah deegaanka. Ururtii waxay barteen akhriska, wax qorista iyo xisaabta. aragnimadaas ayaa keentay in waalidiinta miyiga ay ogaadaan qiimaha waxbarashada, iyagoo ku dhiiraday inay ururtooda geeyaan dugsiga Maryan. Sanado kadib, qaar ka mid ah ardaydii ay waxbaraysay Maryan ayaa noqday dhaqtariin, macallimiin iyo injineero. Mid ka mid ah ardaydii oo noqday dhaqtar caan ah ayaa yiri, haddii aysan Maryan waxna bari lahayn xilligaas, nolosheena waxay ahaan lahayd mid jaahilnimo ah. Xikmadda qisada ayaa ah, dadaalka iyo aaminsanaanta yoolkaaga ayaa noqon kara isbeddelka ugu weyn ee bulshadaada. Hal qof oo dhiiranaan leh ayaa wax weyn ka beddeli kara jiilaal dhan.